Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalkan Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ayaa maanta kulan ku wada qaatay xarunta madaxtooyada ee dalka. Uhuru ayaa ku soo dhaweeyay Theresa May iyo wafdigeeda xarunta madaxtooyada, waxaana soo dhaweynta ka qayb qaatay madaxweyne ku-xigeenka William Ruto iyo wasiirka dalxiiska Najib Balala iyo wasiirka gaashaandhigga. Soo dhaweyn kadib ayaa labada dhinac waxay kala saxiixdeen heshiis lagu horumarinayo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaabka dib loogu soo celin karo hantida la xado. Booqashada ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee mas'uul sidan u heer sareeya oo ka socda dalka Ingiriiska ku imaada Kenya. Kenyatta ayaa horaantii bishii July heshiis la mid ah kan la saxiixday dalka Switzerland si wadada looga xaaro soo celinta lacag laga xaday dalka oo qiyaas ahaan gaaraysa 72 bilyan. Kastaba Theresa May ayaa dhawaanaan waxay booqasho ku mareysay qaaradda Afrika iyadoo soo martay wadamada ay ka mid yihiin South Africa iyo Nigeria, waxayna noqonaysaa booqasho taariikhi ah oo muddo 30 sano kadib markii wadamada Afrika ay ka xoreeyeen gumaysigii Ingiriiska.